iyo gobolka awdal ka duwan yihiin gobolka awdal waxa uu ka mid yahay gobolada Somaliland waana gobolkii muxuu ahaayay dastuurka markii la codeeyay loogu codeeyay Somaliland ayaan reer awdal ka mid yihiin reer awdal lagu tumaa inay muxuu ahaayay iyadoo ay gobolka awdal u yahay gobolkii laga aasaasay jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland markii aynu xornimadeena la soo noqonay guulayska taagayna sabab inka waxa loo yiraahdaa soo meesha taalamaha waantii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdi wasiirra oo hogaaminayo ayaa shalay u kicimay dalka Djibouti aynu jaarkanahay runtii waa taariikh iyo guul madaxweyne maadaama uu muxuu ahaay ku guuleystay talada dalka inuu wadamada jaarka xiriirkooda adkeeyo uu tago marka wadanka Djibouti oo aan xiriir runtii aad u wanaagsan leenahay mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo xuduud dheerna inaga dhaxayso ayuu madaxweynuhu tagay wuxuu martiqaad rasmi ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geeli waxaana ku soo dhaweeyay madaarka Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti runtii waxayna ahayd arrin loo baahnaa oo waqtigeega timiday waana safarkii saddexaad oo halkii labada jeer ku noqday Dubai markii dambana imkana waa ka baxay dhinaca iyo Djibouti wadamadan kale jaarkeena kulli waxaan rajaynayaa inuu iyakana tagi doono haddii la yiraahdo waanay wanaagsan tahay madaxweynuhu inuu wadamada jaarkeena oo dhan ilaaqaad fiican la soo yeesho halkii hore ay wax joogeen in hore looga sii socdo marka madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada u kaysaba waxaan leeyahay hambalyo waan ku hambalyeynaya waan soo dhaweynaynaa Ethiopia oo wadan aynu jaarnahay safarada ku leenahay xiriirna inaga dhaxeeyo iyo xuduud bay inaga dhaxeeyo tu ganacsiga ku siyaasadba Djibouti waa wadan iyadana waxaan xiriir leenahay madaxweynuhu uu ku horeyn karaa Djibouti Ethiopia uu ku horeyn karaa marka madaxweynuhu go'aankiisa uu qaatay inuu Djibouti ku horeeyo Ethiopia uu tagi doono wax dhibaato oo arrinkaas uu leeyahay ma jirto garaadku iyo gobolka awdal ka duwan yihiin gobolka awdal waxa uu ka mid yahay gobolada Somaliland waana gobolkii muxuu ahaayay dastuurka markii la codeeyay loogu codeeyay Somaliland ayaan reer awdal ka mid yihiin wax guuxa iyo wax dhibaato Somaliland awdal ka jiraan ma jiro muddada ay Somaliland jirtayna guriga looga taliyo kulli madaxweynaha ka ahayn marna madaxweyne ku xigay maanu ka nahay sabab reer awdal lagu tumaa inay muxuu ahaayay iyadoo ay gobolka awdal u yahay gobolkii laga aasaasay jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland markii aynu xornimadeena la soo noqonay guulayska taagayna sabab inka waxa loo yiraahdaa soo meesha taalamaha waana runtii waxaan u arkaa waa arrin deeqaaf ah waan meesheedii